waxaan ugu horreyntii mudane guddoomiye hal la is dhegaysto. xildhibaanada sharafta leh. asalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan tabriir iyo inaan u samayno marmarsiyo maanta u baahnayn waxa la gudbiyey shalay oo aan documentisa ee guddiga maaliyadda uu soo gudbiyey iyo maanta dooda ka daba timid inuu wacyigiisa iyo garashadiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa shacabka Soomaaliyeed ku fahmi karaan u malaynayaa ilaa madda ay sax tahay intay khalad tahay inuu fahmi karaan u malaynaya. waxaan ku faraxsanahay xildhibaanadii halkan yimid inaanay ka hadlin warbixintu inay khalad tahay. waxa la soo saaray ee guddiga maaliyadda uu soo saaray oo ah laba lagu daray inay 4 tahay inaysan ka hadlin inay khalad tahay horta ku faraxsanahay. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeedana dhageysanaya ama guddi maaliyad aan noqono ama baarlamaan aan noqono wasaarad aan noqono waxaan rabaa qofka dhahaaya nambarka 2 marka lagu daro 2 maaha guddigani nambaru isku daraa siyaasad kama shaqeeyo shaqo kale kama shaqeeyo xeerkii baarlamaankaana wax lagu ansixiyana wuu ilaaliyaa. waxa aan ka hadalnay waa intaas waxayna ku qoran tahay waraaqihii wasaaradda iyo dokumentigeedii. marka waxaan rabnaa cidda dhahaysa nambarka ay soo gudbiyeen guddigu wuu khaldan yahay ciddii intaas tiraahda ha caddaysa bes dokumentigaan soo gudbinay ha qabsadeen nambarka 1 ama 2 ama 3 waxaasaa ka khaldanay yidhaahdeen laakiin dariiqii loo maray baa khaldanaa. annagii gruubka anaga qaaraa maqnay aniga markii sharcigan ay guddigu ka shaqaynayeen xildhibaan baa halkan ka yidhi 2 bilood ayaa laga shaqaynayay oo qiray ragga diidan ka mid ah. anigu markii sharcigan laga shaqaynayay waxaan joogay Istanbul diyaaradda anoo saaran oo runwayga ay ku jirto Turkish Airlines ayaan saarnaa ayaa la soo dhigay meesha ay guddigu wax ku sheer gareeyaan baa la soo dhigay. guddigu waxay leeyihiin group oo email ah oo gmail ah oo qof walba ay ku gaarto hadduu hal tilaabo qaadayo guddigu guddoonka hadduu wasaaradda wax ka codsanayo hadduu guddoonka laftirkoodu qayb bay ka yihiin baarlamaanka. waxaan ka hadlayaa guddigeenna hoose ee baarlamaanku hadduu email meel u dirayo cid walba way gaartaa oo ay khusayso. annaga xubnaheennana wayna soo wada gaartaa WhatsApp groupkana way nagu gaartaa. qofka maqanna wuu soo comment gareeyaa dee qofkii shaqada la wado diyaar u ah inuu qayb ka qaato. walihaada aniga anoo diyaaradda saaran ayay ii soo dhacday in runwaygana ay ku jirto diyaaradda ayay ii soo dhacay fariin dhahaysa sharcigii waa kan ee soo akhriya doodiisana waan isaga imaanaynaa wixii commentii hore usoo qaata. waxaan ka wadaa warbixintii marka isla markii gruubka xildhibaanada ku jira markhaati iga ah isla markii baan soo qoro waxaan ku yidhi war diyaaraddan saaranahay ii boobsiiya intaan faleedka soo saarana aan soo akhriyay. waa la ii soo diray isla markiiba diyaaraddan kusoo dhex akhriyey commentigaygaan ka dhiibtay way ku caddahay meeshii bay ku caddahay markhaatina guddigaa ka ah. waa la isu yimid fadhi baan isugu nimid xamar markaan imid kadib guddiga shir buu yeeshay. shirkuu guddigu yeeshay waxaan xaqiijinayaa oo maanta aan ilaahay aanan uga dheeraanaynin 10 xildhibaan ee halkaa ku qoran 4 ka mid ah inay fadhiyeen. dad aan fadhin anigu been kama sheegayo laakiin 4 ka mid ah fadhiyey 10kooda mid ka mid ah oo Maxamed Cabdikaafi ahna hadda Turkiga uu jiraa dalkaba ma joogo maxamed ilaa ma America jiro Maxamed Cabdikaafi dalka ma joogo maadaama uusan fadhin magaciisa meesha ka daa. okay adaaba sheegaya dadka inuusan joogin maxaa magaciisa soo qaadaysa. qof ka mid ah 10kan xildhibaan ma joogo 4 ka midana attendance-gii maalintaa la saxiixay waxaa haya sidii hore loo sheegay shaqaalaha guddiga la shaqeeyaa naga saxiixayay. haddii laga waayo maalintii la ansixinayay oo ay wax qorayeen innagaa been sheegayna laakiin dee dadku say isu bedelaan bayna asaabic araxmaan waaye qofka qalbigiisa yuqallibu kayfa yashaa asagaa gadgadiyo alla qofka qulubtooda. marka annaga qofka isbedelay waxba kama qaban karno. waxa muhiimka waxa weeyaan guddiga baarlamaanka ee inagu aan hadda ka tirsannahay halkan waxaa kaloo lagu sheegay hal xaaraanahu nirig xalaala ma dhasho. guddiga baarlamaanku hal xaaraana maaha marka waa intaana laga cudur daarto weeye. guddiga baarlamaanku hal xaaraana maaha nigir xaaraana iyo mid xalaala midnana nirgama dhalna. annaga waxaan dhalnaa reportis iyo shaqo iyo number lagu daray. xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka tirsan mas-uuliyadeenna xukuumad ma nihin wasiirro ma nihin
wasiirkay tahay especially inuu difaaca dalkiisa wasiirkay tahay inuu ka fakaro kooramkan maalinta ajenda mucayan oo xukuumadda ay si u taabanaya boqolkiiba boqol aroortii soo noqonaya labada saac soo buuxsamaya maalinta kaleetana uu goobtu faadi yahay wasiirada laftirkooda laga rabaa shaqada qaranka iyo mas-uuliyadda inay daacad ka noqdaan ayagaa laga rabaa inay dalka difaacaan ayagaa laga rabaa waxa saxda ah xildhibaanadu ka hadlayaan wixii saxa inay ka hadlaan ayagaa looga baahan yahay marka anigu waxaan rabaa kaliya inaan sheego dadka halkan ku qoran in ka mid inay fadhiyeen ayna ku qoran yihiin maalinta xuduurkii ahaa go-aanka soo baxana go-aan guddiga baarlamaanka inuu ahaa hadduusan go-aan guddi baarlamaan ahayn ee uu xataa go-aan si kale usoo baxay yahay anigu waxaan rabaa in la dhaleeceeyo oo la yidhaahdo waxa meesha ku qoran ee warbixinii waa khaldan yihin ha aadin qofka wax qoray waxaa dhahdaa waxa la qoray waa sax iyo waa khaladaan rabaa qofka diidaya marka aad yaan loo wareerin aadna aan jahwareer loogu ridin dadka soomaaliyeed waaci waaye way la socdaan iyagaa noo sheegaya waxa xafiisyada dowladda xalay ka socday qof walbo marka way garanayaan dhaqaaqyada socday iyo sida wax u socdeen marka yaan aad loogu wareerin taasaan dhihi lahaa waa mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullah xildhibaan sahra